assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa duumo, cudurka la yidhaahdo duumo ama malaria sidaad u garanaysaan ama aad u taqaanaan. Waa maxay duumo? Duumo waa xanuun khatar ah, waxaana qofka ku keentaa xumad zaa'id ah iyo weliba dhaxan ama qarqaryo. Waxay qofka ku qaadi kartaa marka ay qaniinto kaneecada sumaysan ama barasaadka ee loo yaqaano afka qalaad plasmodium, kaasoo kusii gudbo qaniinyada kaneecada sumaysan. Intaa kadib ayaa barasaydka uu raacayaa dhiigga isaga oo ku gaaro sida beerka dadka, halkaas ayuu ku tarmaa xanuunka loo yaqaano duumada. Kadib ayuu dib ugu soo laabtaa dhiigga isagoo raacayo unugyada cascas ee dhiigga noocyadiisa kala duwan. Mid ka mid ah oo kusii jiro in beerka muddo dheer ayaa waxaa keeni karto in duumadan ay ku faafto beerka. Noocyada kala duwan ee malaariyada keeno waxaa ka mid ah Plasmodium falciparum oo ah nooca ugu halista badan ee loo yaqaano BF, waana malaariyada inta badan ku badan wadamada Afrikaanka ah sida wadankeena Soomaaliya. 2. Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale iyo Plasmodium malaria. Waan kala qeexaynaa. Plasmodium falciparum waana nooca ugu yar ee cudurka keeno, wax dhimashana ma keeni karo. Si kastaba ahaatee, dadka qaba waxay u baahan yihiin daawo maxaa yeelay way u gudbi kartaa, waxayna dhib ku keeni kartaa qofka caafimaadka qabo in uu ugu badan dadka laga helo barasaydka, wuuna kusii jiri karaa kadib inta xanuunka ah, mana keeni karo marka qofka laga daaweynayo. Haddiise la daaweyn waayo, dib ayuu usoo baraarugayaa. Plasmodium malaria waa dhimasho ma keeni karo, wax dhimasho ah ma keeni karo barasaydkan, balse wuxuu u baahan yahay daaweyn, waayo haddii uu fiirsanayo dhiigga muddo sanado ah ma keenayo waxbo. Plasmodium ovale isaga jirka ayuu ku haraa oo dhiigga ayuu raacaa, beerkana kuma tarmo, dadka qabane aad ma u badno. Daaweyn ayay u baahan yihiin sida kuwii hore aan kor kusoo xusnay. Midda ugu halista badan waa midan. Lambar 4, Plasmodium falciparum waa kan ugu khatarta badan ama ugu halisan cudurka duumada, waana kan inta badan African common ku ah, khaasatan sub-Saharan African. Waa sidaan kusoo sheegnay wadamada Afrikaanka ah. Calaamadaha lagu garto cudurka duumada ama malaariyada waxaa lagu gartaa qandho, matag, dhidid, daal fara badan, madax xanuun, labo ama yaqyaqsi, calool xanuun, cunto ka go'id, shuban, muruqa xanuun siiba addimada iyo dhabarka. Cudurka duumada haddii aan la daaweyn wuxuu si dhaqsi leh khatar u gelin karaa nolosha qofka bini'aadamka, wuxuuna raacaa dhiigga gaarka ah ee unugyada jirka ugu muhiimsan. Meelo badan ayuu dunida ka mid ah kaneecadan wax saamaysaa, difaac kama gaashaamanto. Daawooyinka inta badan waa lagu dili karaa. Sida lagu ogaadaa in ay kaneeco ku hayso malaria, waxaa lagu ogaan karaa in test lagu sameeyo blood testiga ama dhiigga si loo baaro ama loo hubiyo barasaydka oo ku jiro dhiigga. Sidee daawadeeda looga hortagi karaa kaneecada? How to treat the malaria. Anti-malarial medication ayaa la qaadanayaa ama la isticmaalayaa si loogu daaweeyo loogana hortago malaariyada. Noocyada aadka ugu qaadanayso kolba waxay ku xiran tahay nooca malaariyada ama duumada ay ku hayso. Sidoo kale calaamadaha ugu halista badan duumada, da'daada iyo weliba waxay ku xiran tahay qof uur leh ama pregnancy ah. Kuwa ugu badan ee ka mid ah ee loo isticmaalo daawooyinkan waxaa ka mid ah chloroquine ama quinine sulfide ama hydrochloroquine ama valpaquine ama combination atrovaquine. Malaria FG qaadashada daawada duumada malaria kala tasho markasta dhakhtar, ha iska qaadan sababtoo waxay ku keeni kartaa mid halis naftaada ku ah. Dhibaatada ay hadda keeni karto malaariyada dadka ku xumaato. Haddii malaariyada ay kugu xumaato waxay keeni kartaa dhiig la'aan daran ama isbaliinka oo qarxo, beeryaraha laga wadaa. Kelida ay waxyeelo kasoo gaarto kidney problem ama organiska ama xubnaha ugu badan ee jirka ka mid ah waxyeelo way gaari kartaa. Sidee baa looga hortagi karaa
duumada ama lagu xakameyn karaa cudurka malaariyada ama duumada. Ka hortagga duumada ama kaneecada qaniinkeena waxay ka badbaadinaysaa duumada ama cudurro kale ay keento kaneecada sida yellow fever-ka ama qandho maskaxda ku dhacdo loo yaqaano Japanese encephalitis iyo xubnaha daangi kaneecada dadka qaniinta subax hore ama maqribka inta badan qaado si dhaqsi leh iskaga daaweyn sida lagu daaweeyo kaneecada. 2 xiro dhar ama ku filan mid qarinayo addimahaaga sida gacmaha iyo lugaha. 3 daaqadaha guriga ku yaalo shabaq u yeel ama iska xir si ama haddii hawo aa qaadanaysidne waqti horeeta iska buufi. Sariirtaada ku xir shandarawad ama mare kaneeco. Shandarawad waxaa la dhahaa sisiyeriga. Isticmaal lambar 5 shandarawad sunta leh ee kaneecada way kaa dilaysaa haddii aad isticmaasho shandarawad ama mare kaneeco sidaad u taqaano ama sisiyeri. Qodobka ugu dambeeya ee isticmaal daawada lagu buufiyo ee disha kaneecada. Haddii aad isticmaasho intaas waa ka bogsan kartaa duumada. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena malaria ama duumada. Wabilaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.